محوها جبلان ما دام ما أنت عن جوجله السجع محوها يقولش ما أنت مركز سيد الله شيء وما أنت سوين ورر جبلان يتاريخ ذي الديمقراطية ده يهرسعد كصومالي أنا مجا كله محوها مالك الأوين أي تهاي علنك جمهورية الصومالية مالنتي سي أي تهاي والله مناسبات أو إسكسو آدي oo aad iyo aad u qurux badan oo aan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan hambaliyo dadka reer Jubbaland waxaan leeyahay ayaguna hambaliyo inta kadib walaalayaal Soomaaliya geedi socod dheer oo ku saabsan dawlad dhisidda ay soo martay maanta laga wada taariikheeyay raggii maxaan ku yiraahdaa dawlad dhisiddaas ka soo qayb qaatay oo 30 sano ku dhawaadkii muxuu ahay wadada dheer la soo marayay ku wada jiray oo ka ahaa muhiimka ayaa maxaan ku yiraahdaa ka hadlay marka gadaal dambe iyo meesha laga soo bilaabay inaan ku noqdo mar raba laakiin socodkaas dawladnimada mar walba mida asal u ahay isfahama asal u ahay isfahamkuna wuxuu ka imaanayay wada hadal uu ka imaanayay isqadarin uu ka imaanayay iswalaalsi iyo maxaan ku yiraahdaa ka imaanay waxa dhaqan noo ahaa jirtay dadka Soomaaliyeed sida mudane muxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur halka uu ka sheegay ayagoo isdirirsan xataa dagaalkoodu inuu xad lahaa dagaalkeenu ma gaarin dagaalka meelo badan oo Afrika kamid uu gaaray oo dadka in la jarjaro xubnahooda iyo in la gubo iyo in la balaayeeyo ahayd maanan gaarin weli Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo xeerka iyo dhalashada iyo waxa iyo qadarin weynay dadkeena ku dhaxlahaayeen mar walba waxay ahayday mid aan ku soo caano maalnay waana mid maanta laga hadlay in ay naga ciladaysan tahay oo ay cilad naga yeelatay waxaan rabaa marka wadadaas aan rabaa in loo noqdo baaqa halkan laga jeediyay ee ahayday ee loo fadhi maayo haddii ciddii mas'uuliyadda la saaray ee lagu ogaay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaad aad u ballaaran oo dheer oo maxaan ku yiraahdaa dawladnimada ma laha laakiin muhiimad gaar ah ayaa loo soo qaaday intaas waajib oo madaxweynaha loogu dhiibay oo ugu horeyso inuu yahay ilaaliyaha dastuurka inuu ilaaliyo waa lagu xadgudbay waa la waxeeyay duruufaheena gaarka marar badan waxay keenayaan in khaladaad inay dhacaan isku ceebin isku eedayn laakiin qaladaadka in la iska qabto laga soo noqdo la iswarsado war meeshaas ma wadadii naga ma jirtaan wadada u noqonna la yiraahdo oo la isdhageysto ay ku baan maxaana la isku dhageysana markii la isla fariisto la isla hadlaa la isdhageysan karaa si kale la isku ma dhageysan karo la isku ma maqli karo marka isfaham siyaasadeed oo loo wada jiraa mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan ku soo caanamaali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay hal loo noqdo waxyaabaha muharramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyo aanay ahayn waxa kamid ah mandate-kii ay dawladda shacabka Soomaaliyeed dawladda siiyeen hadii uu dhamaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydaya xaraan waay wax extension la yiraahdo oo dalkan ka dhacaya ma jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la siiyay mandate 4 sano ah mandate-kiisa 4 sano ahayd 7 February 2021 ku eg yahay madaxweyne waqti aad haysataa wali fursadaad haysataa wali 15 biloodaad haysataa wali waxbaad sameyn kartaa wali dadka Soomaaliyeed oo dhammaa waxaas weyn yaa raalli ka wada ah oo inay kugu kaalmeeyaan diyaar u ah muddadaas aan sheegnay ka hor xilka laguma haysto horana laguma haysanin go'aan gaarista iyo mas'uuliyadda aday ku saaran tahay laakiin qofne mas'uuliyadda mustaqbalkiisa iyo magaciisa iyo heybadiisa iyo dawlad iyo yaani dadnimadiisa iyo amnigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo midda guud inta qof gaar ma saarna qaanuun iyo maxaa loo sameeyay dastuurka maxaa loo sameeyay hay'adaha dawladda ee kala duwan ha ismiisaamaan ha is ilaaliyaan la yiri maxaa loo sameeyay waxa loo sameeyay
inaan hal qof gacanta inta garab indhaha la isku qabsado gacanta garabka laga saarto inta la iska daba kaco qar iyo doon inaanu kala dhicin daraadeeda loo sameeyay waxaan leenahay madaxweyne aqliga ha soo noqdo talada ha soo noqoto ummadda Soomaaliyeed inay kula shaqeyso way soo cadaysay inay raali ka tahay horay kula soo shaqeysay maalintii lagu doortay ilaa maanta welina waa talaan leenahay ra'yiyaan qabnaa marka aanan waxba ogeyn oo dadku aanay waxba ogeyn waliba waxa laga yaabaa inay jadda shakariyaan waxyaabo qaarkood aan sax ahayn ay ku dhawaaqaan ku hadlaan laakiin marka dawladdu ay wax u sheegto dadka waxa jira ay u sheegto oo ay la socodsiiso sida xaalka iyo duruufuhu ay yihiin dadku ma qaldamayaan tala sax ah ay diibayaan madaxweynuhu dadka ha la fariisto dadka ha dhageysto intaasaan soo dhahaynay kama daalayno inaan dhahno wadar ogol waa waxa kaliya ee lagu marayo meeshii qaanuunka noo qorayo oo dastuurku qorayo oo qawaaniin kale qoraysa ay jirto ha lagu dhaqmo meeshii mugdi ka jira ama waxyaabaha naga dhimanaya dastuurku waa qabyo loo yiri ay ka mid tahay qabyada naga ana aan ka wada hadalno ummadda Soomaaliyeed ha ka wada hadasho dawladda gogol ha fidiso la isku warsado wadar ogolna ha la helo si hore loogu socdo laakiin meelo yar yar yaan lagu laabanin inta aan hadlaynana wax kala kamaanaan hadli jirin inta un baan ka war waqtiga waa dhamaaday waa 4 sano sideedaba ayadoo iska yarayday ya haddana intii badan ay baxday maalin maalmaha kamida oo dawladani ay ka shaqeysay ma jirto in maxaan ku raadayay si qurux badan oo xaraga leh oo wanaagsan oo muxuu ahaay talada dalka hadii dib loo doortana sidaan oo kale mar labaad la doortana aan muxuu ahaay intaan u nimaado aan u sacbino aan u duceyno oo aan muxuu u hambaliyeyno haddii mid kale la doorto oo Soomaali ana sidoo kale asiin aan yeelan laakiin lagama leexan karo wadadaas wada laga leexan karo oo meel kale ka furan maaha waxaas marka maxaa ka jahawareer siyaasadeed abuur marka waa maxay bari lama yaqaan wax dhacayo dadku marka in ay maxaan ku raadaan wax waa gooni jahawareerka siyaasadeed cawaaqib xumo leeyahay dadka urha loo bixiyo meesha loo socdo ha loo sheego kii ra'yi ka qaba ra'yi ha ku darsado kii kale ha ku qanci gacanta intuu taago u sacbiyo muxuu ahay ha ku raaxaysto haddaba kaco oo kalsooni badan ha helo laakiin inta maya xagga maya waa laga hadlay koonfur galbeed wixii ka dhacay waa laga hadlay ilaa maanta lagama jawaabin jawaab sax ah lagama jawaabin madaxweynaha la doortay ee koonfur galbeed hadda jooga waa soo dhamaatay waxaan leenahay madaxweyne laba waajibaa ku saaran labadaas waajib iska ilaali mid waa dadkaaga reer koonfur galbeed inaad nabadayso oo aad dib u heshiisiin u samayso oo kuwa wax sheeganaya aad madaxa gacanta ka saarto kuwa xiran oo siyaasad wax dad u xirnaadaan xurriyadooda lagu qaado siyaasadda u xun siyaasadda dambi ma aha qofka ra'yigiisa inuu cabiro jidka yimaado dambi ma aha inuu idaacadda tago hadlo dambi ma aha meel inay isugu yimaadeen dadka si loo ilaaliyo dastuurkaaba siiyo yiri isku imaada oo maxaan ku raadashay dambi ma aha dadaa u xirxiran dadaa u dhintay dadaa u dhaawacan dadaa siyaasad daraadeed loo dilay waxaas waa wax aad iyo aad u farxumo laakiin maxaa wax lagu farxa ah ummadda Soomaaliyeed kartida iyo capacity-ga iyo dulqaadka ay yeelatay kuwa la dilay ayaga kabooda godan la garanay meel ku yaalo lagu daadiyay waaliday leeyihiin daday leeyihiin maxaan ku yiraahdaa aabayaal iyo walaalo iyo wiil hooyo dhashay ahaayeen wax la aqbali karo ma ahayn haddana wax ka sii daranayaan imaanin dadku waa liqeen kuwa jidku soo baxay koonfur galbeed waxaan la socdo macquul maaha magaalada Baydhabo barrac xabada lagu laayay qaarna waa la xiray dadku waa iswarsadeen war waxaan maxay ahaayeen war waxaan waa meel qatar waxaan ma fiicno waa haye meeshaan meel ka si xun yaanan aadine bal aan meeshaan joogno inta wixii laga hadlay maanta oo dhan Jubbaland wixii la soo marsiiyay iyo wixii war dawladdan iyo nidaamka baladkan ka jiro maanta anu ma garanayo maanta la joogo iyo duruufaha jiro mid wax sidaa ka fiican oo la sameeyay karo wax badan waa ka dhiman yihiin wax badan oo horumar way u baahan tahay laakiin maanta waxaan qabaa wixii la sameeyay karay wixii ugu fiicnaa in la sameeyay wala
marka waxaan leenahay madaxweynaha la doortay mudane axmed asagana sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa dadkaas walaalaha ee tabashada qabo waxay tabashada ka qabaan waa tabasho siyaasadeed waaye tabasho kale ma ahan in uu xooggiisa iyo caqligiisa isugu geeyo ilaa ay hadda sida uu dulqaadka u muujiyeen oo u sii muujiyo lana jiriyo waxaan sidoo kale aad iyo aad u ammaanayaa odayaasha dhaqanka ilaa maalintii ku mashquulsan ee weli ku mashquulsan ee shalay noo yimid ee yiri waa ku mashquulsanay waa jirnaa oo aan fariinta ugu farray ayaguna runtii door fiican ay qaateen waa ku ammaanaya waa ku xinay laakiin Jubbaland waa ka soo baxday wixii waa ka soo gudubtay gudoomiye Xamza meeshaan si tafaasiil oo noogu sheegay nidaamka la maray sharciyad waaye intaasaaba sharcigoo la maray ah wax badan annaga xataa naga mugdi ahay maanta waana loo iftiimiyey oo walaahow iyo muxuu ahay buuq la geliyey iyo been looga sheegay intaba maanta waana loo iftiimiyey waxayna ahayd wax saxa waxaan rabaa marka maanta maxaa jira galmudug xaaladda maanta ay ku sugan tahay mid lagu farxo ma ahan guddiga la tilmaamay ee maxaanku iraahdaa dawladdu ay samaysay waa kii maanta laga hadlay inta uu Xamza halkan ka sheegay ee dawlad goboleedkan saxda ku ah ee dastuurka federaalka saxda ku ah intaas un baa galmudugna sax ku ah wax ka duwan ma jiraan dawladda wiilal yaryar xafiisyadeeda ka shaqeeya civil servant ah waa violation ayada lafsadeeda xeerku wuxuu qorayaa shaqaalaha rayidka ah siyaasadda active kama noqon karaan xeera qawaaniina qoraysa taalo oo jamhuuriyadda ay leedahay wiilal shaqaalaha rayidka dawladda ah agaasimayaal ah muxuu shaqaale kale ah ayaa guddigii loo magacaabay oo dawladdu ay waxaynaysaa dawladdu ma aha kaliya inay sharci si yani meeshii ugu hooseysa sharciga ku tumanaysa ahlu sunna wal jamaa waqad ka soo saartay inaanay ku qanacsanayn murashaxiintii tartanka inay u gashay rabay meesha galmudug la yiraahdo waqad kale ka soo saaray yaa waxaas waa violation macquul ma aha war ka joojiyaan leenahay dawladdu wadadaas ka joogto wada sax ma ahan war dadka fursadda nidaamka federaalka dhan maxaa loo sameeyay nidaamka federaalka xukunka dadka in loo dhaweeyay ee nidaamka federaalka xukunka dadka ugu u tagay inay dawladda dhex daba kacdo oo ay ka daba gurguurtay meesheeda ugu tagta ma ahan institutionka dawladnimada checks and balances ka dhumay ha soo noqdo shalay maana daraad hanti dhowraha guud ee qaranka oo hay'ada ah ayaa soo saartay in lacag maqan tahay maxaa asiga la dib loo mareejiyay inta ka hadal idaacadda inta sheekan muxuu asaas dheh fool xumo waay maxaa ka sii horeeyay guddigii korjoogtayta baarlamaanka oo maaliyadda markay yiraahdeen 42 milyan oo dollar maqan waana tanaaxeer ilaaliyaha guud xafiiskiisa soo cadeeyay dokumentigan ay ku qoran tahay meesha ku maqan tahay maxaa la yiri guddiga dadkii madaxda waa laga raacday socdaal daadka maxaa waxay tahay waxa sheegaysaa meeshii ku danto waa dhamaatay dawladaha marka maanta dhahayo muxuu ahaayay transparency jiro wanaaga jiro oo horumar maxaan ku raay la gaaray fidnay ka talinayaan aan leenahay dawladaha saas ka shaqeynayo lacagta ay sheegayaan waa mid Soomaaliya roojinaysa mid Soomaaliya wax u talaysanaa tii cashuurta dadka ku qariban oo jidadka ka xiran yihiin oo maxaan ku raay loo taagay jinka laga aruuriyay maqan oo meel lagu sheegin tii caalamku keenay hanti dhowriyeeda accounts dibadda